ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano ay ka mid yihiin Fiido, Duduble, Kiliga, Shiinaha iyo Burcadheer oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxna ay ku dileen maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab iyo horjooga kooxdaasi ka tirsanaa howlgalka oo ah mid qorsheysan ay ciidanka kumaandooska xoogga dalka waxa ay kaga hortageen dhagar ay maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab u maleegayeen shacabka Soomaaliyeed iyaga oo jab xoogan gaarsiiyay kooxda nabadiidka ah howlgalkan ayaa waxaa fuliyay ururka 7aad ee guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka Danab iyaga oo ku qaarijiyay horjoogihii jabhadaha gobolka Hiiraan u qaabilsanaa nabadiidka iyo ku dhawaad 60 maleeshiyaadkaasi ka tirsan waxay sidoo kale ku burburiyeen goobo lagu farsameyn jiray qaraxyada iyo halkii lacagaha baadda ah ee ay ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa ka hortaga dhagarta ay argixisada Al-Shabaab u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana wuxuu tilmaamay in lagu guuleystay qaarijinta horjoogihii kooxdaasi dhinaca jabhadaha u qaabilsanaa ee gobolkaasi Hiiraan iyo maleeshiyaad badan oo ku dhow 60 iyo burburinta xarumihii lagu farsameyn jiray qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gobolada dalka ku baahsanaya maleeshiyaadka nabadiidka argixisada Al-Shabaab